kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada xiisaha leh ku daawo doontaan waxa kamid ah Koonfur Afrika ayaa sheegtay inaysan ka laaban doonin dacwadda xuquuqda Israa'iil inkastoo Trump oo dalkaasi ku soo rogay xanibaadyo iyo sidoo kale inuu ka goosto gargaarkii Mareykanka uu sii jiray South Africa. Turkiga oo cambaareeyay weerar argagixiso ka dhacay Pakistan. Qatar oo ku baaqday in si buuxda loo dhaqan geliyo heshiiska xabajoojinta Gaza. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawo doontaan haddii weyne laga helo. balse faahfaahinta qodobadaas intaan u gudagelin daawade haddii ay tahay markii kugu horeysan soo booqato YouTube-keena Barkulan Media waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto aad ka mid noqoto saaxiibada aan halkan markasta ugu baahino wararkii ugu dambeeyay caalamka. Muuqaalkana like saar sidoo kalena saaxiibada la wadaagsi share gareey muuqaalkan. Hagaag haddii aynu ku bilowno dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay inaysan ka laaban doonin dacwadda xuquuqda Israa'iil inkastoo Trump uu dalkaasi ka goostay gargaarkii uu siin jiray dalka Mareykanka. Koonfur Afrika ayaa wacad ku martay inaysan ka laaban doonin dacwadda xuquuqa ah ee ka dhanka Israa'iil ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ inkastoo maamulka Trump uu jartay hanjabaadyo iyo gargaarkii dalkaasi uu siin jiray. Koonfur Afrika ayaa ahayd wadankii ugu horeeyay ee Israa'iil u soo jeesay maxkamadda ICJ sababo la xiriira dagaalkii xasuuqa ah ee Gaza oo ay ku dhinteen in ka badan 48,000 oo qof isla markaana ay ka dhigeen burbur xabajoojin qaadatay 19 Janaayo. Toddobaadyadii hore madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa saxay amar fulin oo lagu joojinayo kaalmada dhaqaale ee Koonfur Afrika isagoo ka argoosanayo sharciga cusub ee saami qaybsiga dhulka oo ay ku doonayaan inay hanti ka haysato cadaanka tirada yar ee dalkaasi iyo sidoo kale dacwadda ICJ ee ka dhanka Israa'iil. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa dhawaan saxay sharciga la wareegida kaasi oo ogolaanayo dowladda in ay la wareegto dhulka magdhow la'aan haddii ay tahay cadaalad sinaan iyo danguud. Dowladdu waxay sheegtay in sharcigani ay ugu gol leedahay in wax lagu qabto cadaalad darrida hore ee midabada takoorka waxa ayna eedeysay Trump oo ay leedahay waxa uu keenay been abuur qalooc iyo sidoo kale macluumaad qaldan. Sida laga soo xigtay Ramaphosa wadanku waxa uu kaliya ka helay Mareykanka maalgelinta ka hortagga HIV/AIDS kadib markii Koonfur Afrika ay soo saartay dacwadda ka dhanka Israa'iil oo ay ku eedeysay jabinta heshiiskii xasuuqii 1948 ee Mareykanka Gaza. Dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Nicaragua, Colombia, Cuba, Libya, Mexico, Spain, Belize iyo Turkiga. Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa si gooni ah u soo saartay amar lagu soo xirayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu wasiirkii hore ee gaashaaniga Yoav Gallant oo loo haysto dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bini'aadanimada oo ka dhacay Gaza. Trump ayaa sidoo kale cunaqabateyn saaray maxkamadda ICJ si ay baaritaan ugu sameeyaan saraakiisha Israa'iil. Haddii aynu fiirino dalkaas iyo Turkiga ayaa cambaareeyay weerar argagixiso oo ka dhacay dalkaas iyo Pakistan. Turkiga ayaa sabtidii cambaareeyay weerar argagixiso oo ka dhacay gobolka Balochistan ee dalka Pakistan kaasi oo lagu dilay ugu yaraan 20 askari. waxaan u rajeynayaa in Allah subhanahu wa ta'ala askarta Pakistanka ee shahiiday waxaana tacsi u direynaa dhammaan shacabka reer Pakistan ayay wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ku tiray hadal ay soo saartay. Turkiga ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ay taageerayso Pakistan dagaalka ka dhanka argagixisada. Militariga Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 25 askari oo Pakistan lagu dilay dagaalka ka dhacay aaga koonfureed ee dalkaasi. 23 argagixiso ayaa lagu dilay howlgallo ka socday Balochistan tan iyo toddobaadkii tagay. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uu garab taagan yahay Pakistan falalka argagixisada ee khatarta ku ah nabadda iyo amniga. Mar uu horay ula kulmay ra'iisul wasaaraha Jan Sharif oo dhinac socday shir madaxeed. waa hagaaga daawadayaal weli waxaad daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay caalamka balse haddii aynu eegno Qatar ayaa ku baaqday in si buuxda loo dhaqan geliyo heshiiska xabajoojinta Gaza. Ra'iisul wasaaraha Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Mohammed bin Abdulrahman
ayaa ku baaqay in si buuxda loo dhaqangeliyo heshiiska xabajoojinta Gaza intii lagu guda jiray shir jaraa'id uu magaalada Doha kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan bin Cabdiraxmaan ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la bilaabo wajiga labaad ee heshiiska iyo xasilooni lagu gaaro gobolka. wajigii ugu horeeyay ee 6 toddobaad ee heshiiskani waxa uu ka dhaqan galay 19 Janaayo isagoo hakiyay dagaalkii xasuuqa Israa'iil ay ka geysatay deegaanada oo ay ku dhinteen in ka badan 47,400 oo qof oo u badan haween iyo caruur tan iyo 7 Oktoobar 2023. heshiiska xabajoojinta ee saddexda waji waxaa ka mid ah maxaabiista la isweydaaranayo iyo xasilooni joogto ah iyadoo la hiigsanayo xabajoojin joogto ah iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza. kooxda Falastiiniyiinta ayaa sii deysay ilaa iyo 25 maxbuus sida uu dhigayo heshiiska iyagoo lagu bedelanayo boqolaal Falastiiniin ah oo ku jira jeerarka Israa'iil. waa hagaag daawadeel intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay caalamka oo hadahan oo kale aad ka daawo jirteen Barkulan Media, balse haddii aad noo soo gaartay dhamaadka waxaan mar labaad ka codsanayaa inaad YouTube-kana subscribe saarto aad gambalka furto sidoo kale muuqaalkan share garayso saaxiibadaadna aad la wadaagto.